من مالك الدنيا الله أبوري إلى ساعة قيامة أيضا عيسو كي أقول نعمة بدنا يا أقول برواقة بدنا أي بنك قيام الله كان ابو النبي يقول عليه الصلاة والسلام لكن يسوق أهل النار أي الله كان دونا والنار لا صيوضه هل مركلي أنتو الله سوق هذا أي النار تلقلين دونا النار تلقلين والله قصوا علين دونا مركز الله ويدين دونا يا الله أورن دونا ولقى الدنيا أنت تكون ولا برواقة يا نعمة ما كسومرتي أنتو إلهي قدر تبولي هي ولقى نعمة يا برواقة هذا يراتي عنو ما بارك بولي وكينا dadki adduunyada soo maray waa kii ugu nicmo badnaa ugu barwaaqo badnaa hal mar oo jahannamo la geliyo laga soo celiyay ayuu nicmadii oo dhan ku halmaamay mar kaliya nicmada adduunyadan dul taala ee dadku maanta nicmad ay moodayaan ee markii nicmo la hadal qaadaba computerkeena ay ka soo baxayso adduunyadu maanta nicmad markaan hadal qaadno waxa maskaxdeena markaaba ku soo degdegaysa أقل وين يا قاري وين يا لعق وين يا درجة وين يا رير وين يا إسلام وين بقلبي إنه كسر دقيقة نعمة صلاة دا جماعة كتو كتبها النعمة دا هذا الكإله إلا نص خير كهل لنبع النعمة دا مقل كاجي على نص خير إله الدين دي سينا مقشبها النعمة دا سجودة يسد بها النعمة دا عرب كذا إله كذا شكرين يسد بها النعمة دا قعنت هذا أصاد استعمال يسد بها النعمة دا نبي الله عيسى عليه السلام ayaa arkay nin labada gacmood halka ku go'an labada lugoodna halka ku go'an in dhalo oo waliba aan waxbana arkaynin baraslo jirkiisu cad yahay oo leh ilaaha waxaan ku mahadiyaa balaayo badan oo adoomihiisa ku dhacday ilaaha iga ilaaliyay baan ku mahadiyaa buu ku ducaysanayaa markaasuu nabi ciise calayhi salaam ku yidhi balaayada adiga kaa maqaneed ka alla baryaysaa maxay tahay waadigan gacmihiina waad laadahay lugihii waad laadahay araggii waad laadahay midabkaagii waa doorsooyo waa baras baad leedahay waa maxay nicmada adiga dhibaatada dadka kale ku dhacday ee balaayada ummadda kale lagu riday ee adiga ilaahay kaa ilaaliyey waa balaayaday buu aad sheegaysid wuxuu yidhi aniga ilaahay jalla wacala wuxuu i siiyey qalban shaakiran wa lisaanan daakiran qalbi waxa ilaahay igu deeqay mar walba ilaahay aan ku xasuusto ku haya cadamadiisa iyo maxabadiisa iyo jacayladiisa iyo carab waxa ilaahay i siiyey mar walba aan ku haya dikrigiisa iyo taacadiisa miyaynan balaayo ahayn buu yidhi ilaahayna laga magan galo dadka ilaahay quluubtii intuu siiyey qalbigoogiina ilaahay ku garan la carabkiina ilaahay uu siiyey carabkoogiina ilaahay ku xusi la inagu maanta nicmad markaan maqallo waxa maskaxdeena markaaba ku soo degdegaysa adduunyada dhalaalkeega dadkii adduunyada soo maray kii ugu nicmad badnaa ee ugu barwaaqo badnaa laakiin maxay ugu taallaa ayaan daro wuxuu ka baxay adduunyada isagoon ilaahay iyo rasuulkiisa garanayn laa yagurannaka taqallubu aladiina kafaruu fi lbilaad mataacun qaliil uma ma'waahum jahannam wa bi'sa almihaad ilaahay baa qur-aanka inoogu sheegay weligoodba gaaladan arladan ay kolba dhinac u gagadoomayaan ee kolba wax iyo teknoloji ay soo saarayaan ha ku degin baa nebiga lagu yidhi ha ku degmin waxaan doonaynaa baa ilaahay yidhi وحذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون بإلى هيري ها عنان ها عياران ها اسكتون تاني اسكت دافع النبي قال له يري قدام دنبي سوغان دونان بإلى هيري متاع قليل إن يروي الراحة الدويد هدي هايستان إن يربي هايستان ثم مأواهم جهنم هل كيكوه يعني وجهنم بإلى هيري والعياذ بالله kii adduunyada ugu barwaaqo badan buu ahaa ugu nicmo badan laakiin adduunyada waxa uu ka baxay isagoon ilaahay rasuulkiisa aan garanayn isagoon allihii abuuray xidhiidh la yeelan daarta loogu talagalay loo noqonayana aanan qusahay qaadan nebigii la soo diray calayhi salaatu wassalaam ee bashariyadda caalamkao dhan la yidhi way indhalaayihiin waxba ma arkayaan adigaa indhaqabee bini aadanka soo badbaadi la yidhina noloshiisii iyo dhaqankiisii buu u arkay dib u socodnimo afaman yamshi mukibban calaa wajhihi ahada am man yamshi sawiyan calaa siraatin mustaqiim baa ilaahay yidhi ilaahay rasuulkiisa ninka raaca waa ninka caadiga labada lugooda caadiga ku socda weeyaan ilaahay rasuulkiisa ninka yidhi ma raacaayo diintay la yimaadeen iyo shareecadoodana qaadan maayo amarka ilaahay qaadan maayo nabi maxamed dariiqadiisii mari maayo
dhaqankii nebi maxamedna dhaqan ka dhigan maayo ninka yidhi waa nin yidhi madaxaan ku soconayaa madax ku socda weligii meel ma gaadho